عدالتي عطاها انتي رجل عاقلي كما مرمان عطاري. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي كسو لواذا جنال كينا ما أنت وحيد كسو قدبين دونا لكولا كميد علماء الصوماليات وليبا كوة وسامين تبدن لن كدالين يرادا وشيخ لغو مقعابو شيخ عبد الحي شيخ آدم وأنا كوي ديني سؤال دورة. شيخ عبد الحي محاضو تقانا سياسة أنا وحنا وقانا ومامل إنه قف عنكم مامله إنه مدحكم ماملنا عقل وحكينا إنه مدفع عن إنكم مامل حاجاتك كنتي سياسة مسجد كلوجة هذا حاجة لقى كاني مكان سيرة آخرينه ودين الإسلام كان آخرينه النبي صلى الله عليه وسلم أساعدتكم جاميناي مركو جيريودين وحكوا حاجة أبو بكر الصديق وحكوا حاجة عمر بن الخطاب عثمان بن عفان ساسة واحد مركها دي مساعد كان سياسة لوجه هذين هالكاس على الله صوت دجال اللي هذا أبو بكر يا عمر يا محمد مساعد كسياسة أيوة أخذ بين أبو بكر بعد دورتين مركو أنت كذب مركها أنتوا يستاهلوا حكوا أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني أنا قال لي دورتي مسؤولية اللي يدين من خير بدنية هدان توصنادنا أي كالمية هدان قلوعدنا يعني التوسية مركز سياسات halkaas laga soo gaaray taasaan daba soconaa wax la yiraahdo mashaadka lagu tukado oo kaliya halkaasna lagu qasqasto wixii la rabo oo ribaha la isticmaalo oo zinadu ha faafto oo yaan la hadlin taas meesha aan iguma jirto waxa ay taala ittaqillaha haythu ma kunta meel ka soo joogto ilaahay ka cabso sida mashaadka ay tahay ilaahay looga cabsado yaa waxaan rabaa baarlamaanka in ilaahay looga cabsado suuqana ilaahay looga cabsado jaamacadana ilaahay looga cabsado meel kasto inuu joogno in ilaahay ka cabsano diintu meel ay fasax qofka siinayso wallahi diintii baan fasax ka soo qaatay كنا مشاهدك كوسي هاي الدين تا أنا سياسي بأنا هاي وحاجة وانصوير جيرين هاي أنا فكر كاس مقام مسجد كجودي سا إن لو قصلا محي شريعة مدينة الإسلام كقبتها مساجدكو نلاش مسلمين تا وحكاية وحول با إسبيتال بنقون كرا ودك الجودة هويه وحنقون كرا جرون لو عياره وأصحابته حكى سجناتي إن نمك حوش الهجري كانوا يلعبون في مسجد رسول الله إسبيتال بوها وسعد بن معاذ تاندha meesha looga dhisay ayuu yani ku dhig baxay oo markii dambe uu ku dhintay xabsi ayuu ahaayo lagu xiri jiray kii la soo qabto in la jiray Thumamat ibn Athal yaa waxa lagu soo xiray tiir kamid ah tiirarka masaajidka marka masaajidku waa noloshii dadka oo dhan meesha ay ahayd dhalinyarada sidee masjidka loogu soo xiri karaa midan qosolka iyo arrimaha ku saabsan dadka ma ka xanaajina oo ma dadka diinteena islaamku waxay tahay marna waan tukanaynaa oo cibaadaan ku jirnaa waan khushuucaynaa markii salaada aan ka baxnana salaadu kuma jirnee mar inay dadkii ay nastaan dadka mugtay askarta waxa la digtoonow markaas ay digtoonow ku qallafaan hadii maanta oo dhan digtoonowga lagu haayo way daalayaan marka waxa rabaa marna in digtoonow la dhaho marna la yiraahdo nasta ayaa la yiraahdaa marka arrintan aad arkayso dhan waxa waa dhinaci ahaa nasta marka waxa dhalinyaradu ay jecel yihiin ee masaajidka ugu soo xirmayaan waa arrintaas iyada ah hadii ayna dhalinyaradu ka helin masaajidka baahidooda dhalinyaranimo oo tawjiih la siin lahaana uu jiro meel kale oo madadaalo oo meel xun u wadaysa ayay raadsanayaan marka masaajidka maxaa dadka la isugu soo uriyay loogu sheekeeyay oo loo qosliyay intii la dheelaay in masaajido dhan waxay la tahay la badiyo oo dadku ayna inaga fakanin oo meesha ay mashaneema aadi lahaayeen ama meel xun ay aadi lahaayeen inay dhahan masaajidka geeya qisadii iyo sheekadiina waan ka soo helaynaa salaadiina waan ku soo tukanaynaa fikir saliim oo toosan oo ah sida nolosheena adduunyo u qaabaysan lahayna oo ama xagga siyaasadda ahaato ama xagga arrimaha bulshada ahaato waan ka soo helaynaa waa fikrad aan aaminsanahay aan u arko meesha laga sixi karo wasiilada aad isticmaasho si aad dhalinyarada wax ugu sheegto waa maxay wasiiladana inay tahay wasiilada soo jiidashada jiirka ma ka caqli yartahay jiirka waxa markuu rabo inuu xaqaniino horta wuu afuufaa markuu iska afuufo oo qofkii uu seexiyo markaas uu qaniinaa marka qof markaa inaad wax sheegto horta waa la diyaariyaa qofkii oo faraxsan oo qanacsan ayaa wixii la rabo in loo sheega laakiin qofka asoo Facebook ugu jira oo aan qalbigiisa ku furin oo yani ku xanaaqsan haddaad maanta dhan wax ku akhriso waxa laga yaabaa inuu ilaahay kan maryaa ka fasaxo wayna dhacdaa oo masaajidada aragtay qaarkood markii salaada jumcada laga baxo inta laga baxaya dhib ku ah assalaamu calaykum marka la dhaho midka kabihiisu si qaadanaya maxaa yeelay qofkan raba inuu wax u sheego yaa waxa laga yaabaa baadidii ay raadinayeen dhalinyaro inayna khudbadiisana ka helin soo la hadlayna aysan ka helin marka inay kabaha boobaan oo cararaan miyaa fiican mise hadda waxa dhacday masaajidka aan khudbada ka akhriyo markii salaada uu buuxsaa masaajidka oo banaanka lagu tukada markii salaada laga baxo soo dadku hore ma sii baxaan xaafadooda ma aadaan khudbadaas taxliiqaas ay u dhageystaan
yaa qaar badan oo ka mid ah hor allay gudaha masaajidka u soo galayaan waxaas maxaa keenay bal xigmad meesha inaad maanta